waxaa sharaf ii ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 1 May 2021 inaan halkan idinkugu imaado kulankan gaarka ah aan idin siiyo warbixin xaaladihii u dambeeyay gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka inaan halkan ugu hambaliyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee kooda xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni geesinimo iyo daljacayl waxaan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed sidaas darteed dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeena aadayo waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho isla markaasna uu noqdo marjac iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan kadib 8 bilood ku dhawaad oo wada xaajooda 26 Sebtembar 2020 waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jihaynta doorashada 2020 ee sida wadajirka ah uga soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya 17 Sebtembar 2020 sharigaas wuxuu dalka u leexiyay doorasho dadban oo ay dantu kaliftay balse durugsan dimuqraadiyaddii iyo dawlad wanaagii aanu dalku la rabnay mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17 Sebtembar 2020 dadaaladii lagu turxaan bixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku astaysan shirar joogto ah wada xaajoodyo gaar ah xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16 Febraayo 2021 bay dhab lagu gaareen hase yeeshee waxaa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo dana guracan mudanayaal iyo marwooyin 12 April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jihaynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dawlad goboleedyada wuxuuna abuuray jawi cakiran magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso xasarado qorshaysan waxaa la barakiciyay shacab waxaana khatar la geliyay naftooda iyo hantidooda su'aashu waxay tahay yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan yaa dhaqaalaha ku bixiyay ka dawlad ahaan mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho caruurta iyo waayeelka waxaan idiin sheegayaa magaaladan qof ahaan aniga lixjeclo weyn ayaa iga haysa waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay magaaladan aan ku barbaaray dugsi quraan ka bilaabay dugsi dhexe dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uga baxay aan ku barbaaray ku weynaaday caasimad bilic leh caasimad weyn oo dad badan degan yihiin wanaaga dad waala dad aan wax kale isku fiirin kaliya ku saaxiiba danahooda taas baad ay ku laabato dhabbadii foosho xumayd
uu qaaday 30 sano ka hor sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeena ah shisheeye uusan nooga faa'iideysan aanu dhexdeena ka xalisanno si dawladdeena curdunka ah aysan nooga burburin sanay inaan xalka ku raadino wada hadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiiga shacabka balse aan tusaale u noqonno ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeena oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado boroseska aan lagu mashquulin qof walba kaambeynkiisu galo nasiibkiisa uu qabaa mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xiirinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020 Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hogaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn mudanayaal iyo marwooyin gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo uniyada Soomaaliyeed waa ubaxeena weeye waa mustaqbalka berri waxaan idinkula dardaarmayaa ha noqonina xaabo la shito oo dana shakhsi ah lagu gaaro oo haligi kara naftiina maalkiina dadkiina dalkiina iyo diintiina wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته